Waxaana wanaagsan gebi ahaantiin baa daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda hadaan oo kale ka daawataan janalka Gobson TV. Qodobada ugu doorka roon aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada macawisleyda oo weerar ku qaaday deegaano ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. Eritrea oo shaacisay dalal doonaya in Al-Shabaab ay Soomaaliya ka taliyaan. dalalkaasi oo xiriir wanaagsan xilligan kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya oo arrimaha duulimaadka Kenya kala hadlaysa iyo heshiis horey ay ula gaartay dawladda Kenya oo markaasi ay burburisay dawladda Kenya. Koonfur Galbeed oo jawaab ka bixisay go'aankii mucaaradka maamulkaasi. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamijyadeena daawadayaal intaan guda gelin faahfaahinta qodobadaasi. waxaa si xushmada ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba daawada waxaan halkan kugula wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan annagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. waa maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 11aad ee November sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. wararka inaga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa deegaanada Shabeellaha Dhexe ee macawisleyda ee markaasi weerar maanta ku qaadeen deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada xoreynta deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ay ka duuleen markaasi deegaanka loo yaqaan Xalfooley isla markaana ay weerareen deegaanka Ceel Baraf iyadoo markaasi dagaal xoogan uu dhex maray macawisleyda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab halkaasina uu khasaaro kala duwan markaasi uu ka dhashay. hogaamiyaasha ciidamada deegaanada markaasi macawisleyda ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in weerarkan ay ku qaadeen deegaanka Ceel Baraf oo ay ku dileen 2 ka mid ah dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab hubna ay markaasi ka furteen. sidoo kale waxay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka fulinayaan gobolka Shabeellada Dhexe ilaa laga saarayo kooxda Al-Shabaab guud ahaan gobolkaasi. dhowaan ayaa deegaanka Miir Taqwo oo u dhow deegaanka Ceel Baraf waxaa lagu soo bandhigay ciidamo deegaanka ah oo hubeysan kuwaasi oo sheegay inay diyaar u yihiin la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo ay sheegeen markaasi in ay dhibaato weyn ku hayaan dadka deegaanka. dhanka kaleetana wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya xildhibaan Farduus Cismaan Cigaal ayaa magaalada Muqdisho kulan gaar ah kula yeelatay safiirka dawladda Kenya u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Thomas Chekpoto. labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo markaasi ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada gaadiidka iyo duulimaadka iyo dib u celinta duulimaadyada Kenya Airways ee Muqdisho. sidoo kale waxaa isku soo markaasi hadal qaadeen arrimaha duulimaadka gaar ahaan culayska ku yimid helidda fiisaha dalka Kenya oo maalmihii u dambeeyay la sii adkeeyay. wasiir Farduus ayaa Ambassador Thomas la wadaagtay dhibaatada ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ku qabaan fiisaha Kenya oo markii hore muddo 7 lagu heli jiray balse haatan ay qaadan karto ilaa iyo bil taasi oo xitaa aan hubanti buuxda loo helayn in markaasi la helo. Farduus ayaa kulan kadib waxay shaacisay in dawlad ahaan ay markaasi ku dadaali doonaan sidii markaasi hoos loogu dhigi lahaa culayska ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed u safraya wadanka Kenya. dhankiisa danjiraha Kenya ee Soomaaliya ayaa ballan qaaday oo dabagal ku sameyn doono isla markaana uu xal rasmi ah u keeni doono dadka Soomaaliyeed si loogu fududeeyo helidda fiisaha dalku galka ah ee wadanka Kenya oo Soomaali badan ay markaasi ku nool yihiin.
wadahadalladan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeysay ay isi soo tarayeen eedeymaha loo jeedinayo dowladda Kenya ee ku aadan markaasi inay ka gaabisay fulinta heshiisyadii ay horey ula gashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dib markaasi u fasaxay qaadka ee miiraaga loo yaqaano ee waddanka Kenya ee laga keeno. dhanka kaleetana wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyas Cali Nuur oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Universal ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed iyo arrimaha doorashada. Ilyas Cali Nuur ayaa marka hore jawaab rasmi ah ka bixiyay go'aankii ka soo baxay xubnaha mucaaradka ee Koonfur Galbeed ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka hor yimid qorshaha muddo ee kororsiga madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. Wasiirka ayaa markaasi shaaca ka qaaday in xubnaha mucaaradka looga baahan yahay inaysan qaadin caadifad, isla markaana ay tahay inay ka fikiraan xasiloonida iyo sidoo kale danaha shacabka Koonfur Galbeed. qofka marka uu mucaarad yahay ama uu wax sheegayo ma aha caadifad iyo kursi raadis inay ka noqoto. waxaa loo baahan yahay qofka siyaasiga ah in siyaasadiisa ay ku salaysan tahay caqli iyo miisaan, ayuu wareysigan ku yiri wasiir Ilyas Cali Nuur. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay arrin sharciya tahay muddo kordhinta madaxweynaha maadaama ay meel mariyeen golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee muddo xileedkiisa waa la yaqaanaa, waana sanadka dambe December. aniga kuma darin baarlamaanka ayaa mowqifkaasi iska leh, iyagaana ku daray, ayuu mar kale yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed. ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay markaasi in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo loo dhan yahay si loo ilaaliyo midnimada shacabka Koonfur Galbeed. madaxweynaha iyo golaha wasiirada dhammaantood waxa ay u taagan yihiin matalaadda shacabka Koonfur Galbeed, marka way ku qasban yihiin, ayuu yiri, in markaasi la qabto doorasho hufan oo ka dhacda Koonfur Galbeed haddii la gaaro waqtigeeda, ayuu raaciyay wasiir Ilyas Cali. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan Koonfur Galbeed uu markaasi ka taagan yahay khilaaf ka dhashay hoggaanka doorashada ee maamulkaasi, waxaana xiisadan ugu sii daray muddo kororsiga Laftagareen oo ay ka hor yimaadeen xubnaha mucaaradka ee maamulka Koonfur Galbeed. qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena daawadayaal. haddii aad markaasi nala soo gaartay qaybtan, waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo, oo aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay daawad inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan, anagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa.